bismillahi raxmaani raxiim awal assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada janaalkeena wararkii ugu dambeeya ee sportska Luis Diaz oo markaan lasoo bandhigay nambarka 14aad loo xiray qiimo noocee ayuu ku imaaday wax walba ugu baahanta kulankii soo dhamaaday ee naadi kubadda cagta Liverpool gool ka gaartay meeqa ayay ku adkaatay ciyaartoy wis oo gool dhaliyay balad gooni aan la siiyay xidig garoonka la siiyay lacag meeqa ayaa ku soo aadaa leeyahay sidoo kale wararka waxaa ka mid Granit Xhaka oo asigana la soo bandhigay Sunderland ayaa soo bandhigtay wax walba ugu baahan tahay suuq kala iibsiga qiimihii ugu dambeeyay sabayo soo bixi doona leeyahay sidoo kale Dembele oo maanto kale 2 sano ka hor ku biiray aqbalay naadi kubadda cagta PSG inuu ku biiro wararkaasi warar kale ayaan yahay kulamada la filayo ciyaartooyda qarka u saaran inay naadigooda ka tagaan soo dhawaada xaaj official ku soo dhawaada subscribe noo saar like dhashin share gare waxay mahadcelina daawashada muuqaalkan soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay suuq kala iibsiga waxa hogaaminayo Luis Diaz oo markaan la soo bandhigay naadi kubadda cagta Bayern Munich ayuu la gaaray heshiis 4 sano ayuu qalin ku duugay qiimo lacageed dhan 25 milyan ayuu kula wareegay naadi kubadda cagta Bayern Munich Liverpool intaas ay qaadatay wixii gunooyina gadaal laga bixi doona leeyahay ninkaasna marka ku qiimay qiimaha 1.10 waatay Luis Diaz marka ugu dambeyn wuxuu ku biiray naadi kubadda cagta Bayern Munich sidoo kale Luis Diaz ayaa naqday markii laga eego daas 38 ninka 8 ayuu ka naqday 38 jir dadka suuq ku baxay ninka uu qaalisanaa booska 8 ka soo galay waxa ku jiro Eden Hazard oo Chelsea ka tagay Real Madrid ku biiray Griezmann sidoo kale Atletico ka tagay Barcelona ku biiray sidoo kale waxa kamid ahaa Ronaldo oo Real ka tagay Juventus aaday sidoo kale Lukaku Inter ka tagay Chelsea ku biiray Harry Kane oo Tottenham ka tagay Bayern Munich aaday sidoo kale Gonzalo Higuain oo Napoli ka tagay Juventus aaday Neymar oo PSG ka tagay Al Hilal aaday Diaz ayaa naqday xidigii 8 ee 38 jir ah ee ku wareegay naadi kubadda cagta Liverpool ka tagay Bayern Munich aaday marka waxa la xidigii 8 oo naqday da'da 38 markii la fiiriyo sidoo kale warka waxa kamid ah Granit Xhaka ayaa asigana ku soo biiray naadi kubadda cagta Sunderland asigana waa la soo bandhigay lacagta 7 milyan ayuu ku imaaday leeyahay waxa soo dhamarka waa ay dhamaadeen saxiixyadii ugu dambeeyay suuq kala iibsiga waa loo kala baxay wixii qarka saar marka waa arki doona naadi kubadda cagta Liverpool ayaa gool ka gaartay dhigeeda naadi ka dhisan Japan waxay 3 gool ugu adkaatay sidoo kale marka waxa kulankaas laga soo calaameeyay xidiga dhawaangalka ah ee Bayer Leverkusen ka imaaday wis ayaa dhaliyay gooshiisii ugu horeysay naadi kubadda cagta Liverpool marka xidiga kale ayaa wax dhaliyeen xidigii cusbaa oo kale sidoo kale daayir had u soo baxayo sidoo kale Eketika oo saftay kulankiisii ugu horeeyay ee naadi kubadda cagta Liverpool asigoo xiran nambarka 54aad marka ninkaas asigana bandhig fiican ayuu muujiyay walo ciyaarta gool uusan ka dhalinin laakiin waxa la rajeynaa kulamada soo socda inuu gaaro shabaqa wax walba ku saabsan marka kulankaas xidig garoonka waxa loo doortay wis oo gool dhaliyay waxa la siiyay lacag oo ah 1 milyan oo lacagta Jabaaniiska oo u dhiganta leeyahay 6500 marka 6500 dollar ayaa loo siiyay xidig garoonka ahaan marka wax walba kulankaas ku saabsan waa ka naadi kubadda cagta Newcastle ayaa tijaabo gashay waxa ayna gool dara ay kala kulantay ciyaartii ay dhashay 1 gool ever marka Newcastle isaaqna looma arkin ifaala ayaa meesha wax ka bixinaya marka waxa leeyahay Newcastle iyo Diaz Newcastle isaaq markaan ay kala dhamaarwaan marka Newcastle gool dara ay qaadatay kulan isku diyaarin aha barseason gool isku diyaarin xil ciyaareedka soo socda Newcastle hal eber ayaa loo badiyay sidoo kale warka ayaa sheegay in Dani Ceballos oo ay tahay xil ciyaareedkii ugu dambeeyay ee naadi kubadda cagta Real Madrid Ceballos ayaa markaan lagu soo waramayaa inuu ka tagi karo naadi kubadda cagta Real Madrid wax walba markaan ifafaalo muuqata ayaa ka socota leeyahay ninkan inuu tago ay u badan tahay sidoo kale 2 sano ka hor maanta oo kale Ousmane Dembele ayaa aqbalay dalab ka imaaday naadi kubadda cagta PSG asoo ugu biiray qiimo lacageed aad u badan Barcelona ayuuna ka tagay PSG ayuuna ku biiray inkastoo sanado badan uu ku dhibtooday laakiin sanadkiisa ahayd Champions League iyo Ligue 1 iyo Copa de France waxyaalo badan ayuu ku guuleystay asoo ku guul dareystay inuu la qaado Club World Cup Ousmane Dembele maanta oo kale 2 sano ka hor ayuu ku biiray sidoo kale waxa majaladaha dhan ay wada qorayaan unugay dhashay 2008 mustaqbalka Liverpool ah Rio mid ay dhahan ayaa ciyaarta aad u heesto
kulankii horena waa la arkay, haatan waa la arkay. Rio inaba caadi maahan, wuxuu ahaa nin maanta gool fantastic dhaliye 2-8 dhashay adduunka inuu qasaaro marka hadda. Marka waxaa leeyahay ninkan iyo mid kale oo Arsenal jooga asigana shub waa seasonka soo socda Premier League inaba caadi maahan. Marka hadda bedelka Diaz meesha ka doonayaan Liverpool waxaa leeyahay ninkan ha xoogsadaan, waa da'yar mustaqbal ifaya leh, haddii ay lumiyaanna waa dhumi doonaan leeyahay sidii Manchester City iyo Pep Guardiola ee u dhumayn oo kale. nimankaas baad Pep Guardiola madax adeegiisii aadile wax walba wuxuu u suubinaa kadarey iyo waali, laakiin hadda waxaa leeyahay Liverpool Rio cishta booska Diaz waa ni dheeli karaa walow da'yar iska yahay inaba caadi maahan, laakiin mustaqbalka dhow waa anfici doonaa. Sidoo kale naadi kubadda cagta Barcelona xidig ka tirsan ee reer France Jules Kounde ayaa xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo naadi kubadda cagta Barcelona. Waxaa ogeen in heshiis kordhin naadiga doonaysa intaasoo ciyaartoy horena ogeen in Frank de Jong uu aqbale 3 sano heshiisna oo qalin ku duway. Markan waxaa leeyahay Jules Kounde ayaa doonaya inuu heshiis cusub u saxiixo wuuna aqbalaa leeyahay dalabkaas, waa arki doonaa wixii ka soo kordho. Sidoo kale warka uu dambeeyay ee naadi kubadda cagta Barcelona laga soo warinaya ayaa ka mid ah xidiga reer Spain Ferran Torres ayaa lagu soo waramayaa in naadiga ka socda Sacuudi Carabiya Sacuudi Pro League qarka u saaran yihiin ama dalabaad inay kasoo gudbiyaan rabaan. xidigan mushaar waali ayaa loo soo bandhigay. marka ninkan waxaa leeyahay wax walba u baahan tahay anaga ku sameey doono 60 milyan lacag ku dhawaad ayaan lagu bixi doonaa, lagu qarash garay doonaa leeyahay Ferran Torres. marka haddii la soo doonto oo ninkan uu aqbalo waa meesheeda, waxaa leeyahay waa uu bixi karaa. haddii laakiin oo is adkeeyo oo maya uu dhahayo jiilkan cusub oo dhisanayo macalin Felix ayaa rabaa inaan kamid ahaado doo dhahayo sideeda ba Felix inuu diidaa muu maleynay, laakiin wax walba waxay noqon doonaan Ferran Torres hadduu aqbalo waa kaya, hadduu diido waa u diidaya leeyahay. sidaas iyo amaano Allah. muuqaalka xiyaa noo balan insha Allah, tan iyo muuqaal kale subscribe like share. sidaas iyo nabadgelyo.